dheganaayeen madaxa Safa iyo Marwa weligood ismay arag iminka halkan waxa ka bilaabmay socdaalkooda mucjisada ah ee la rabo in xorriyadooda dib loogu soo celiyo waa October 2018 Great Ormond Street Hospitalka la yiraahdo ku yaala London hooyadood ayaa sheegtay inay hadiya habeen u ducaynaysay labadii sanadood ee ay jireen waxaan rajaynayaa in wax waliba ay khayr ku dhamaadaan ilaahay baa khayr ka dhigi doona Safa iyo Marwa ayaa hadaba waxa iyagu mataano xagga madaxa iskaga dhagan oo lafta madaxooda ay isu daloosho waa wax cajiiba gabdhahan 12 bilood jiray ayaa maskaxoodu kala duwan yihiin laakiinse qalliinkan ayaa waxa uu yahay mid aad u culus waxaanu qaadan doonaa 3 bilood oo kolba qayb qalliinkaas kamida la sameyn doono mataanahana lama kala saari doono ilaa qalliinka ugu dambeeya mataan kastaaba waxay mataanta kale madaxeeda ku shubaysaa dhiig si loo jaro xididada isku xidhanna waa mid khatarteeda leh waxaanay u baahan tahay 2 qalitaan oo dhammaystiran mataanahan ayaa waxay ka yimaadeen dalka Pakistan waxaana wanaagsanaan lahayd in qalliinkan hore loo sameeyo waqtigii ay yaraayeen oo ay markaasi si degdeg u soo kaban karayaan laakiinse waxaa la waayay cid bixisa kharashka badan ee ku baxaysa daaweynta gabdhahan yaryar inkastoo ay halisteeda leedahay haddana dhakhaatiirta iyo waalidku waxay isku raaceen in qalitaankan lagu dhaqaaqo haddii aanan filayn inay fursad weyn jirto aan ku badbaadin karno ma aanu samaynayn qalliinkan dhammaanteen waxaan aaminsannahay in si fiican loo kala saari doono bil kadib qalitaankii ugu horreysay ayaa haddana tiyaatarkii qalitaanka lagu soo celiyey gabdhahan waxaanay ku dadaalayeen dhakhaatiirtu iminka inay kala saaraan xididada isu tallaalan ee gabdhaha madaxooda maraya laakiinse waxaa bilaabmay in wadnihii Marwa uu hoos u dhaco waxaana ay ka baqeen inay halkaasi ku dhimato mushkiladii oo dhan waa laga soo gudbay waayo Marwa iyadu waxa ay tahay labada mataano daciifka ah dhakhaatiirta ayaa waxay u tallaaleen xidid weyn oo dhiigga siiya si loo kordhiyo in ay badbaado laakiin taasi waxay dhibaato ku noqotay Safa 20 saacadood kadib markii qalitaanku socday ayaa iyana waxa ku dhacay shalal qarka ayaannu u saaran inay dhimato 3 aanamaal ayay xaaladdeedu halis ku jirtay wakhti adag bay u ahayd hablaha iyo qoyskoodaba kadib markii muddo lagu hayay xarunta xanaanaynta culus ee cusbitaalkaasi ayaa waxa ay taasi keentay in ay labadii gabdhoodba iyagoo caafimaad qaba halkaasi ku badbaadaan